macmiil waxaa halkan idinkula wadaagaynaa qaab fudud oo aad kaarkaaga Salaam Visa Card ugu isticmaali karto ATM-yada, POS-yada gudaha dalka iyo dibadda, iyo online-ka. haddaba si aad lacag ugula baxdo ATM-ka ama aad ugu dukaamaysato POS-yada iyo online-ka, macmiil ugu horeen waa inaad iska hubisaa in kaarkaaga uu shaqaynayo iyo inaad taqaanid lambar sireedkaaga. qaabka fudud ee aad kaarkaaga lacag ugula bixi karto ATM-yada: kow, ugu horeen kaarkaaga geli ATM-ka adigoo horumarinayo qaybta jibka. 2, dooro luqadda. 3, geli lambar sireedkaaga kaarka. macmiil ha ku celcelin lambar sireedka haddii aadan hubin si uu mashiinka kaaga laqin kaarkaaga. 4, kadib dooro Fast Cash lacag bixid fudud. 5, ka dooro shaashadda lacagta aad la bixaysid. macmiil haddii aad la bixaysid lacag ka badan ama ka yartan shaashadda ku diyaarsan, guji Other kadibna geli tira ahaan cadadka lacagta aad la bixaysid. 6, kadib guji Enter. 7, ugu dambayn dooro Yes si aad u hesho rasiidka lacag la bixidda. kadibna macmiil ugu horeen qaado kaarkaaga, rasiidka iyo lacagta. macmiil si aad ugu dukaamaysato kaarkaaga Salaam Visa Card POS-yada dalka iyo dibadda, raac tilmaamahan. 1, ugu horeen macmiil iska xaqiiji in kaarkaaga shaqaynayo una dhacsanayn. 2, qasnajiga ayaa POS-ka gelinayo lacagta aad wax ku iibsanaysay. 3, kadib macmiil marka uu qasnajiga kula wadaago POS-ka, marsii kaarkaaga ama u dhaweey ama geli POS-ka adigoo u horumarinayo qaybta jibka si aad u bixiso lacagta. 4, iska xaqiiji lacagta aad bixinaysid kadibna geli lambar sireedkaaga. 5, ugu dambayn qaado rasiidka POS-ka uu daabacay iyo kaarka oo xafido. macmiil ha u oggolaanin qasnajiga inuu kaa qaado kaarkaaga asigoo aanan wadanin mashiinka POS-ka si uu dhaqdhaqaaq u sameeyo, sidoo kalena xafido nambar sireedkaaga. macmiil si aad ugu dukaamaysato online-ka kaarka Salaam Visa Card, raac tilmaamahan. 1, ugu horeen dooro sheyga ama adeega aad rabto inaad ku iibsatid kaarkaaga. 2, kadib dooro beejka lacag bixinta ee website-ka, geli 16 lambar ee wejiga hore ee kaarka ku qoran iyo taariikhda dhicitaanka kaarkaaga sida bisha iyo sanadka. 3, kadib geli CVV-ga ku qoran dhabarka dambe ee kaarka iyo magaca kaarka ku qoran, kadib guji Pay ama Submit. 4, waxaa lagu gudbin doonaa beejka xaqiijinta ee OTP-ga. 5, macmiil ku qor OTP-ga lagu soo diray mobile lambarkaaga ama emailka ku diiwaan gashan. 6, ugu dambayn ku dhufo batanka Submit. macmiil haddii aad doorato subscription, ogsoonow in lacagta wakhtiga aad dooratay mar walba ay kaa jarmi doonto. iska hubi inta aadan subscription dhihin, sidoo kalena xafido xogta kaarkaaga ku qoran. hana la wadaagin shakhsi kale. mahadsanid.